Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada YouTube channelkeena Somali Youth Scholars. Haddii ay tahay markii kuugu horeysa aad soo booqatay YouTube channelkeena, kusoo dhawo mar labaad ayaan ku leenahay walaal. YouTube channelkan waa YouTube channel aan ugu talagalnay inaan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo aan ugu soo gudbino deeqada waxbarashada sida DV Lottery iyo waxyaabaha kale oo la xiriira. maanta insha Allah waxaan isla eegi doonaa walaal Soomaaliyeed oo nala wadaagay sida uu guuleystay Green Card Lottery iyo interviewgiisii siduu u maray, yani siduu fiisiis wali su'aalihii la weydiiyay. Bismillah, wuxuu ku bilaabay: Assalaamu calaykum asxaabta Somali Youth Scholars. Alxamdulillah, waan nabad tagay, ilaah ayay u sugnaatay mahad oo dhan. Intaa ka bacdi asxaabteyda, waxaan jeclaysay inaan idinla wadaago wixii aan maray xabad xabad, yani wixii aan qofkan uu maray ayuu nala wadaagayaa xabad xabad. Aniga waxaan ahay single. Amina waa magacayga. qof dumar ah waa magaceeda waa Amina, waan single kaliya. Soomaali ayaan ka tagay, waliba gaalkacyo. Waxaana ku galay interviewga Djibouti. Dalka Djibouti ay interview ku gashay, waxay ka tagtay gabar Soomaaliya, gaar ahaan gaalkacyo. Waxay ii soo direen warqadii balanta February bishii 2 sanadkan aan ku jirno ayaa warqada balanta loo soo diray, waxaana i balamiyeen March bishii 3 ayay i balamiyeen. Case numberkaygu wuxuu ahaa 3000. Case numberkeedu wuxuu ahaa 3000. haddii aadan ogeyn case number waxa la dhaho, sidoo kale waxa la dhaho DS260, fadlan video ugu dambeeya ayaan naga hadlay, videogaas daawo. Case numberkeedu wuxuu ahaa gabadhaani waa 3000. waxyaabihii ay safaaradda iga baahneed wuxuu ahaa passport, warqadii dhalashada, shahaadadii iskuulka, warqadii booliska, warqadii caafimaadka. marka adiga waxa waa warqadahan safaaradda walba waxay ku soo weydiinayaan, laakiin inta horta ugu muhiimsan waa inta ku qoran shantan gabadha inta laga rabay intaan waay. marka adiga safaaradda waxay ku dirto mar walba gacanta ku hayso iyo waxyaabo extra ku caawin doona haddii jiraan hayso. 9:15 subaxnimo waa xilligii balanta, laakiin aniga waxaan ahaa mid taga 5 subaxnimo. waa dareemi kartaan halkaas. subaxdii 9:15 ayaa meesha interview ku leh, laakiin 5 subaxnimo ay halka tagtay. waxaan galay safaaradda. shaqaalaha safaaradda mid ka mid ah ayaa ii yeeray, wuxuuna igu yiri qolkaas gal. waxaa ku jiray nin, wuxuu iga qaaday warqadihii dhammaan koobiyo original. wuxuu ii gudbiyey daaqad kale, waxaana daaqadaas la iga qaaday qarash gaaraya $330. waxaa la ii siiyey card, waxaa ku qornaa numberkaaga, yani number card ayaa la siiyay oo waxaa ku qornaa number. waxaa sugay ilaa iyo inta numberkayga laga gaarayo. waa la gaaray, waxaana la iga wacay qolkii interviewga. xilligii ayaa la gaaray oo interviewga oo waa loo wacay. waxaan codsaday turjumaan, qof u turjuma. kulli luuqadda maysan aqaanin, san dareensanahay. dhaar ka bacdi intaan ayay i weydiisay. waa gabar cadaan, qofku wareysanayo waa qof cadaan, waa la dhaariyay. kadib su'aalahan ayaa la soo weydiiyay. intii su'aalo u gudbinaya waxay noo dhahday inan Soomaali ah baa ii turjuntay. gabar Soomaali ah u turjuntay, saa dareemay. fadlan haddii aadan aqoon luuqadda Ingiriiska, fadlan walaal dalba qof ku turjuma oo xariif luuqadda aqaanaha iska dhigin, midaa dhibaato ayay ku keeni walaal, fadlan. arrintan waa run, haddaan luuqadda Ingiriiska aqaanin ha isdhihin yani luuqadaada way fiicantay, English broken meeshas inaad tagtid yani ay isfahm weysiin, su'aalo si kale lagu weydiiyo, si kale ugu jawaabtid, dhibaatadaas dhan iska ilaali. haddaad luuqadda aqaanin, fadlan turjumaan waa hele. af carabi, English, Faransiis waxaad taqaanin, qof turjumaan dalbo waa lagu keenay. qofkan asaga interview ka qaada asaga ku dhahay turjumaan u baahantay, janiska soo lagu siinaa. haddaa luuqadda aqaanin dambi maahan, fadlan dalbo luuqadda ma aqaanin, qof turjumaan u baahanay dheh. sidoo kale aad ayay u fiirisay warqadihii iyo wejigii iyo warqadihii gabadha ay zaid u fiirisay. marka gabadhani iyada jawaabihii bixismaysan na siirin, waxay noo soo dirtay su'aalihii la weydiiyay bas. su'aasha koowaad wuxuu ahay CO, yani waa chief officer, qofku wareysanay. magacaaga oo dhameystiran. gabadha magaceeda ayaa la weydiiyay. sidoo kale waxay kaloo la weydiiyay yaa ku xareeyay DV Lottery, yaa ku xareeyay. sidoo kale la weydiiyay maadooyinka iskuulka lagu dhigo maadada ugu jeceshahay. iskuulka maadooyinka lagu dhigo maadada ugu jeceshahay.
aabaha goorma ayuu dhintay. Then waxayna dhahda fiiro gaar ah. waxaani ay weydiinayso waa wixii aan ku qoray formkii DS 260. waxaana waa formkii DS 260 wixii ay ku qorto waay. marka muhiim waay formkan inaad fahamtid. formkan maxaa waay, case number maxaa, video u dambeeya ugu soo hadla, video isdaan daaban daawo. sidoo kale maxaa la weydiiyay USA markaad tagto maxaad rabtaa inaad qabato. sidoo kale waxaa la weydiiyay weligaa hore ma u guursatay, maxaad u baran weyday luqadda Ingiriiska, luqadda Carabiga si fiican baad u taqaanaa sidaan filayo, sax? inta ayaa la weydiiyay. then wax yar ay yara aamustay kadib Amina kusoo dhawo America, hambalyo. sidaas ayaa lagu dhahay yani Amina kusoo dhawo, hambalyo, America kusoo dhawo. yani interviewgeeda halaas ku ekay. intaas ayaa kusoo koobaya. waxaan jeclaysay inaan asxaabta cusub aan arintaani aan la wadaago. asxaabay nasiib wacan. ilaahna tala saarta. assalaamu calaykum. saarjana waa fahanteen, waa ujeedaan kulli waxa waaye wax badan ay kaaga baxayaan. waxyaabaha loo baahan inaad iska fiirisid, ilgaara ku haysid. waxa waaye waa dareensantahay kulli hadda saan rajaynayo. fadlan walaal marka waxaa isku daydaa inaad ilaah tala saarto. waxa waaye calafka waxa waaye shay aad muhiim ah. marka adiga is oran waxaan iima soo baxayaan, ilaahay tala saar. hadduu waxaan calaf kugu jiro waa helaysaa. marka adiga teeda kale waxaa iska fiirisaa inaad passport adoodan haysanin, passport ben number inay gelisid markaa xariisanaysid. DV Lottery 2023 ga furmi doono hadda bisha ugu soo aadan. marka waxyaabahaasna iska ilaali fadlan. wax been inaad ku qorto iska ilaali meeshaas. wax run ah ilaahay kula ogyahay, passportkaaga ku qoran magacaaga toosan inaad ku wada qortid isku day. marka ilaahay hadduu waxaan kula rabo waa helaysaa. insha Allah intaasaan idin la wadaagayaa. sidoo kale way jiraan dad badan kale ii soo diray, waa ku xumahay aad iyo aad midaan idinkaga cudur daaranayaa. waqti yari awgeed aad u mashquulsanahay. marka insha Allah maalmahan soo aadan insha Allah waan idin soo gudbin doonaa wax badan. emailada soo gaaray waa idin soo duubi doonaa, waa idin la soo wadaagi doonaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.